halkan waa halka ay diyaaraduhu ku ordaan bal suurayso waddan dhan oo laba diyaarad keliya isbuucii ay imaanayaan waa waddan yar oo dunida intiisa kale ka go'doonsan wuxuuna bartamaha uga yaalaa Pacific Ocean من اسمها الدومين تبعها يعني موقعها الإلكتروني Tuvalu is .tv. .tv xataa xabsiga waddankan waa ku furan Tuvalu is like a little dot. You'll be lucky to even find it on a map. waddankan aad arkaysid badkiisu waa 12 kiiloomitir oo keliya waddankan waa waddanka ugu yar ee ay dadku soo booqdaan sanadkii 2023 keliya waxaa soo booqday 3,000 We are sinking. waa waddan uusan qofna u baahnayn marka uu imaanayo inuu fiisa soo jarto sida ay tahay ma lahan meel loo dalxiisto maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay waddankan cajiibka ah laakiin intaana muuqaalka bilaabin haddii aad muuqaalka like garayso oo aad dad badan gaarsiiso sida aragtaa markaa waddankan aadaysid xataa diyaaradda ku qaadayso waa tu yar sababtoo ah ma lahan garoon weyn sida ay tahay toddobaadkii 2 diyaarad oo keliya ayaa imaada waana sababta dadka halkan imaanaya ay u yar yihiin فرق مش ضايلها اشي جود باي تي شيرت فيجي ina marya waxaan u safraynaa waddanka ugu yar dunida في العالم لحظة تاريخية هاي runtii ma garanayno wax halkaa nagu sugayo waxaan isku dayaynaa inaan 2 beri halkaa joogno halkaa waa jasiiradda ay dadkaygu ka yimaadeen laakiin diyaaraddu waxay u ekayd inay faaruq tahay oo ay dad yar saarnaayeen caasimadda waddankan waxaa la dhahaa Funafuti halkan keliya waxaad ka helaysaa amaba ku yaalaba 4 hotel oo keliya waddanka oo idin halkan ma jiraan tagaasi ku geynaysaa sababtoo ah waddanka oo dhanba waa 12 kiiloomitir hadda ninkan waxa uu ii sheegay inaan lugeeyo oo maba iga fogaba hotelka aan degi lahaa garoonka iyo hotelkuba way saaran yihiin ماشي ma sidaana Tuvalu dadku maxay u soo booqan laayihiin kan waa hotelka igmiya طلع من المطار كل رايح labadooda marka ay ku dhahayaan marxaba ama hello waxay isticmaalaan talova ma heli karaa meel aan wax ka cuno kana waa hotelka ama restaurantka keliya ee halkan ku yaala شوف الغرف هيك على البحر magacaa adiga halkan miyaad ka soo jeedaa هذا المكان waay kan ugu dambayn Tuvalu ayaan joogaa هاي الغرفة توفالو waddanka oo idil hal station oo ay boolisku leeyihiin ayaa ku yaala iyo hal shirkad oo isgaarsiina halkan waa meesha keliya aad ka heli kartid ama aad ka iibsan kartid simikaar Welcome to Tuvalu. هذه سينجينج waddanka oo idil waxaan ku soo wareegaynaa 10 daqiiqo wax ka yar keliya xilligan hadda aan ku suganahay 11,000 oo qof ayaa ku nool waddankan xataa ma lahan meel ay kubadda ku ciyaaraan halkan dadka shacabka ee degan waa ka mamnuuc inay gawaari soo iibsadaan keliya xukuumadda iyo inta u shaqayso unbaa isticmaali karta gawaari maadaama waddanku uu yar yahay حتى السلام عليكم halkan waa halka ay ku aasaan dadkooda dhinta baddu waxay u egtahay inay kacsan tahay ilaahay ha yasiro inta badanna waxaa dhaca duufaano armay maantaba aan qarqoonnaa تغرق اليوم
What's happening? dhinacan haddaad eegto waxaad arkaysaa badda, xagga kale haddaad eegtaan waxaad arkaysaa dhinaca kale badda. waana tan masaaxada dhan ee waddanku leeyahay. mararka qaarna marka ay duufaanuhu jiraan ama ay baddu aad u kacdo wuuba qarqoomaaba waddankoo idin. عبرت دولتك بخطوة واحدة. halkanna waa halka ay qashinkooda ku gubaan waddankoo idil. في آخر الجزيرة. sida ay tahay maahan meel nadiif ah, waayo dadku wax walboo qashina waxay ku tuurayaan gudaha jasiiradda. haddana waxaan soo gaarnay guriga ugu dambeeya ee waddankan. آخر بيت في الدولة. bal ila suurayso haddii gurigaaga uu yahay guriga ugu dambeeya waddankaaga oo guri uusan kaa dambayn. halkan waa halka ugu dambaysa waddanka. إلى نقطة النهاية. dhinacan markaan joogno waxaan isku dayaynaa inaan dhinaca kalena tagno oo aan aragno halka ugu dambayso على waddanka. الجهة الثانية نشوف نهاية الدولة هناك. intaa kadib waxaan u jihaystay dhinaca kale ee ugu dambeeya waddankan yar ee Tuvalu. fiiriya muuqaalka. waxaan imid halka ugu dambaysa waddanka. ma xasuusataan ninkan sanadkii 2021 kani waa wasiirka isgaarsiinta ee waddankan. magaciisana waxaa la yidhahdaa Simon. halkan ayuuna istaagay isaga oo la hadlaya dunida. waxauna yidhi fiiriya waddankeennii wuu maashoonayaa, waana ninka ugu caansan gudaha Tuvalu. kusoo dhawow Tuvalu. waddankan inta badan waxa uu ku tiirsan yahay caawinaadda. dhibaatooyinka ugu badan ee wajahayaana waa cimilada. waxayna leeyihiin wasaarad u gaar ah isbeddelka cimilada. طلع حتى عندهم نظارات مكتوب climate change Tuvalu. si ay dhulka u ballaariyaan maadaama waddanku uu yaryahay waxa ay sameeyeen inay jawaano kasoo buuxiyeen carro si ay bedka u ballaarsadaan. dadkan hadda halkan ayay deganaayeen, gurigoodii waa u dumay, halkan kale ayayna usoo guureen. guryahoodu runtii khatar weyn ayay ku jiraan. خطر. dowladdu dadka ma lacag ayay siisaa? maya, waxaan siinaa materiaalka ama waxyaabihii ay ku dhisan lahaayeen. sida ay tahay dadkan waxay haystaan fursado. xataa Australia waxa ay siisay jaanis oo waxa ay tiri kaalaya. halkan waxbarashadu waa free, dugsi hoose ilaa dugsiga sare. laakiin ma haysano ama kuma taalo gudaha Tuvalu jaamacad. dadkuna waxay aadaan Fiji. Australia iyo New Zealand waxa ay haystaan ama ay diyaar u yihiin inay caawiyaan dadka aadaya waddankooda. sidaa oo ay tahay waxaan ka cabsanaynaa in ay dadkanagu kulli xagga u wada haajiraan. kanna waa bangiga keliya ee ku yaalla waddanka. lacagta halkan laga isticmaalo keliya waa cash. ma jiraan waxyaabahan teknolojiyada ah ama teleefanada lacaga la isugu diraayo ama credit cardka iyo waxyaabahaas. keliya waxaad qaadanaysaa lacag cash. dowladdu ma lahan ATM, keliya waxay isticmaalaan cash. waxayna isticmaalaan lacagta Australia. maxaa halkan u timid? waxaan u imid inaan fiiriyo balansigayga. oo halkan waxaa u timid keliya inaad balansigaaga fiiriso. ma jiro wax online banka. markaad u baahato inaad ogaatid lacagta akoonku u jirta waxaad imaanaysaa halkan, waxaana lagu dhiibayaa iyadoo cash ah. waad tirsanaysaa. تسحب. This is a prison. kanna waa xabsiga dowladda. imise qof ayaa ku xiran? keliya 3 qof. 3? oo haddana xabsigu furan yahay. Really? Why? iskuma dayayaan miyaa inay cararaan? waddamadii aan horey u booqday si adag ayaa loo ilaaliyaa maxaabiista. laakiin halkan xabsigu iska furan yahay sababtoo ah meelna ma aadayaan. kombyuutar ayaa gudaha u yaallo. waxay ku ciyaaraan geemamka ayay ku ciyaaraan. Video gaming. meeqa sano ayaad halkan ku jirto? 3 sano. uu ka baxay xabsiga. banaanka miyuu aadi karaa? Really? sabab waxay leeyihiin waqti ay baxaan. There is a time. waqti waxaa jira ay banaanka aadi karaan. 11 bar markii la gaaro way soo shaqaysanayaan wayna soo noqonayaan. halkan miyaad joogaysaa? No?
ma lihin koox waddanka bedesha oo kubadda cagta laakiin waxaan isku dayaynaa inaan ka mid noqono aan ku biirno FIFA shuruudaha ugu horeeya ee hor yaalana wax weeye inaan haysano garoon weyn Falling apart on that side. dadka halkan ku nool waqtigooda ugu badan waxa ay ciyaaraan khamaarka سامعين الصوت هذا ايش؟ تعال خلينا نفرجيكم بيلعبوا قمار. 5. Only number 9. 37. 37. 82. guulaystuhu maanta waxa uu heli karaa 3,000 oo lacagta doolarka Australian-ka ah 87. sida aragtaanna halkan waa la isugu wada yimid haba ugu badnaadaan dumarda ah oo ciyaaraya khamaarka waxaan weydiiyey dhaqaalaha ugu badan ee waddanka soo gala wasiirka dowlad walba waxa ay leedahay internet u gaar ah sida imaaraadku waxay leeyihiin .e Fiji-na waxay leedahay .fj annagana waxaan leenahay .tv cid walba oo isticmaashana waxay ku qasban yihiin in ay lacag siiyaan dowladdeena isticmaalka ay isticmaalayaan .tv twitch.tv ayaana midka ugu caansan ee isticmaala لايف ستريمينج. Live streaming website, and they use waxay u bixiyaan lacagta qaab sanadla lacagta naga soo gashana waxa ay gaaraysaa ku dhawaad 12 milyan oo doolarka Australia xilligan That's good income. ha aad iyo aad very good income. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo halkan ma jiraan dad hantiilayaal ah oo ku nool kuma arkaysa halkan millionaire Tuvalu ama dad ay xaaladoodu hagaagsan tahay People that are halkanna waa halka ay baarlamaankooda ku shiraan dhammaan jasiiradahana waxaa u yaala halkan wax iyaga matalaya حدا بيمثلها هون. halkan waxaan ku kulannaa 2 jeer ama 3 jeer sanadkii halkan ayay wada degan yihiin dhammaan xukuumaddu xataa ra'iisul wasaaruhu Prime Minister neighbors, Yeah. everyone in the government neighbors. we all live around the same area. waxaan la kulmay 2 caruus oo maanta aqalgalaya wayna casuumeen oo waxay dhaheen kale waa sida aroosyadeen oo kale laakiin ka waran haddii halkan dowladdii oo idil ay ku casuumanta maxaa nooga sheegi kartaa waxa ugu quruxda badan gudaha Tuvalu asxaabta iyo qoyska waxaan samaysanaa mar walba oo sanadku sii dhamaanayo kulan sidoo kale dhammaan dadka jasiiradda degan waa dad ehel isku ah oo qaraaba qofba qofka kale uu garanayaa sababtoo ah waa hal wado halkani waa janno marka ay qoraxdu dhacdana sidan ayuu jawigu isku bedelaa waxay isugu soo aruureen inay ciyaaraan kubadda cagta بيلعبوا كرة. kana waa calanka dowladooda waxay xornimada ka qaateen Britain sanadkii 1978 inta ayuu ku egyahay safarkeeni Tuvalu waxaan rajeynayaa inaad muuqaalka ka hesheen waxaa muuqaalka soo diyaariyey Joe Hatib aniguna waan idin turjumayay intaan dib ugu kulmi doono muuqaalkan mid lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo